maanta waxaan doonaynaa inaan ka hadalno guulihii u dambeeyay ee ay gaareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo cutubyada hubaysan ee kacdoonka shacabka Soomaaliyeed. saakay 6 aroornimo waxay ciidamadaas isbahaysanaya oo hogaaminaya xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegeen degmada Ruurnurgood. waxaa hoos yimaada tuulooyin badan. tuulooyinkaas muddo waxaa ka soo socday dagaallo. tuulooyinkaas waxaa ka mid ah tuulada Juxa, Al-Naciima, Al-Kawthar oo dagaallo adag ay horey uga soo dhaceen. xogtoodana aad hesheen oo ay ku dhinteen ugu yaraan 150 maleesiyooyinka cadowga ah ee Al-Shabaab. 15 maxaabiis looga qabtay, 5 ajnabiyana lagu dilay. intaas tuulooyinkaas waxay hoos yimaadaan degmada Ruurnurgood iyo kuwa kale. laakiin ciidanku saaka waxay xaqiijiyeen 6 aroornimo si buuxda inay ula wareegeen degmada Ruurnurgood. ciidamadii cadowga way yaaceen. baacsi baa ciidankii qaarna degmadu ku sugan yahay oo sugidda amnigeedii iyo baaris iyo qaraxyo iyo waxa laga raadinayaa inkastoo wali waxba laga helin oo ay nadiif tahay. ciidanna wuxuu ku sii jiraa baacsiga cadowga. waxaan rajaynayaa insha Allah taala baacsigaasna inaan helbo fiican kala hadlo. degmada Ruurnurgood waa degmadii u dambeysay ee dawlad goboleedka Hirshabeelle ee cadow haysta ee laga xoreeyo. laga soo bilaabo Matabaan ilaa iyo Caliyaalo ama Ceel Cirfiid, dhammaan degmooyinka dawlad goboleedka waxa Hirshabeelle waxaa gacanta ku haya dawladda Soomaaliyeed iyo dawlad goboleedka. way jiraan meelaha ay cadow kaga harhareen sida galbeedka Hiiraan iyo galbeedka Shabeellada Dhexe. ayagana insha Allah taala dhawaan waa la kurtuma jarayaa. meelahaas ay u carareenna waa laga saari doonaa. waana loo diyaarsan yahay cutubyada halkaas ka howlgali lahaana waa loo diyaariyay. shacabka Soomaaliyeed maanta waxaan uga farxinaynaa guushan cusub ee ciidanku gaaray. guuluhuna waa isdaba socdaan. haddana mar dhow waxay u gudbi doonaan dawlad goboleedyo kale. dawlad goboleedyadaas ma aha kuwa hadda fulinta ka jira oo kaliya ah dawlad goboleedka u gudbayaan ee dawlad goboleedyo kale diyaar garoobay oo iyaduna ay howlgal ka bilaamayaan mar dhow oo ciidankoodii xoogga dalka Soomaaliyeed sektarkii meeshaas deganaa ama qaybtii deganayd iyo xoogga shacabka iyo dawlad goboleedka daraawiishtu ay ka wada howlgalayaan. insha Allah guushaas yaanu maanta inii soo sheegaynaa. wixii dambe oo guulaha la gaarana waa inii soo sheegaynaa. hambalyan waxaan leeyahay dawlad goboleedka Hirshabeelle way guulaysatay. degmooyin dawlad goboleedyada kale oo ay dariska la ah sida galmudug oo kale. waxaan rajaynaynaa shacabka galmudug waa shacab dagaalama. dagaalkana way yaqaanaan. ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhan way la joogaan. ayaguna way abaabulan yihiin. yaadan noqonin fulow guul ku dhaweedaa. waa in ciidamada lala howlgalo laga iskana kiciyo cadowga haysta dawlad goboleedka degmooyinka ugu badan marka laga reebo gobolada Jubbaland. meesha uu cadowga ka haysta waxa weeyaan waa dawlad goboleedka galmudug. Haradheere, Ceeldheer, Galhareeri, Ceelbuur iyo tuulooyin yaryar degmooyinka waxba ka dhaceen dad badan aad u degan yihiin. ciidankeenu waa abaabulan yahay. waxaan rajaynaynaa mar dhawaan ciidamadu degmo tuulo beelbeel deegaan in insha Allah taala ciidamadaas iskaashaday xoogga dalka iyo ciidamada qalabka sida iyo ciidamada dawlad goboleedka iyo kacdoonka shacabka Soomaaliyeed iska kaashadaan guulo ballaaran la gaaro.